qisadani waa dhab waxayna ka dhacda dalka Japan waxana markii ugu horeysay baahiye majalad Carabi ah oo xiganaysa wargeys loo kala oo ka soo baxa magaalada Tokyo waxaa jira wiil iyo gabar aad isku jeclaa oo ka wada shaqeyn jiray goob lagu sifeeyo sawirada kaamirada lagu qaado wiilka inta badan wuxuu shaqeyn jiray gelinka hore ee maalinkii halka gabadhuna ay soo shaqo gali jirtay gelinka dambe waxaana dhacday maalin maalmaha kamid ah xilli uu wiilku ka rawaxay shaqada inuu maadooyin kiimika ah oo lagu sifeeyay sawirada oo uu markaa ku shaqeynay si dul saaray kabadh ama istifaalo qolka ku yaalay inantii ayaa markii ay soo shaqo tagtay gelinkii dambe ee ay guda gashay howl maalmeedkeedii caadiga ahaa waxa ay si kadis ah ugu baahatay halkii ay saarnaayeen biyaha wax lagu sifeeyay ee kiimikada ahaa oo aanay ku ogeyn haddii ay cuskatay ama tiigsatay waxa ku soo rogmaday weelkii ay kiimikadu ku jirtay khayladeedii ayaanay ku soo yaaceen shaqaalihii kale markii ay arkeen in xaaladeedu khatar ku jirtana waxa ay durba ula yaaceen cisbitaalka oo degdeg loo dhigay inankii kiimikada meesha saaray ee ay gabadha isjeclaayeen ayaa isaga oo aanan ogeyn yimid goobta xilligii ay dhammayn jirtay shaqada gabadha si uu horay ugu sii qaado saaxiibtiis waxaana loo sheegay waxa dhacay iyo in inantii uu dunida ugu jeclaa ay taale cisbitaalka xaaladeeduna ay adag tahay dhaawac ka soo gaaray kiimikada darteed wuxuu durba xasuustay in sunta ku daadatay inanta ay tahay tii ugu halista badnayd oo ay qasab tahay in ay dhaawacyo kaga tagto jirkeeda wiilkii inta uu aruursado wixii meherada alaab ka yaalay iyo sawiradii xasuus reebka ahaa ee ay ku wada jireen isaga iyo jaceylkiisa ayuu dhaqaajiyay iyadoo aanay cid ogeyn meel uu tagay iyo sababta uu u tagay midna asxaabtii iyo ehladii inanta ayaa tagay cisbitaalkii waxaanay la kulmeen iyadoo xaaladeedu aad u wacan tahay loona sameeyay qaliin qurxin ah waxay arkeen inay indhaha wax ka arki karto oo markii hore loo sheegay in arageedu khatar ku jiro muddo aan badnayn kadibna inantii waa ay ka soo baxday cisbitaalkii iyadoo ciil iyo carab badan u qabta ninkii ay jecleed ee marnaba aan ugu imaan cisbitaalka oo weliba siday u sheegeen asxaabteedu maalintii shilku dhacay ka tegay shaqadii waxay u fahamtay in ninkani markii uu ogaaday dhaawaca halista ah ee soo gaaray uu go'aansaday inuu ku cidleeyo nolosha bukaankana ku naco laakiin haddana ma ayan sal fududaane waxay go'aansatay in aanay sidaa kaga hadhin